ay saacaddu ahayd 5 saac ayaa waxaana maray degmada ceelwaaq dulimaad ku degmaray diyaaradaha dagaalka ee Kenya kamida waxayna duqeyn u geysatay anteenada ku taala isbuur meesha la yiraahdo oo u dhaxaysa ceelwaaq iyo Damas u dhaxaysa kuna idana beegan aniga hadda tahayatay way bari iga beegan waa tahay marka adigu xasan oo halkee ayaad ku sugnayd markii duqeyntani dhacaysay waxaan ku sugnahay degmada ceelwaaq Soomaaliya marka sidee ayaad u xaqiijin kartaa in diyaaradan aad sheegtay inay anteenooyinka soo duqeysay ay Kenya lahayd ma ahan duulimaadka ugu horreeyay oo ay nagu marto diyaaradan meesha waa diyaarad waxa weeye muddo dheerba ka hawlgalaysay gobolkan iyo gobolladanba ka hawlgalaysay waa diyaarad caan ku ah Kenya marka diyaarado kale hadda waxa weeye gobolkan duqeyn ka geysta ama duulimaadyo kale oo military ma jiraan waa ayaga oo Kenya ay leedahay inta aad ka warqabto khasaare nooc ma ayaa soo gaadhay markaas goobtii la duqeeyey hadda xaatidow waxaan joognaa waa xilli habeenimo dadkaana dib waa kasoo gaarinaya duqeyn waxa weeye lama ogaan karo ilaa iyo hadda waxyeelada naf iyo maal bale oo ay geysteen meesha waa deegaan la degan yahay oo dadkii miyiga ah iyo guuraaga ay degan yihiin waa meel ay tuulooyin badan degan yihiin waxaana kuu sheegi karaa anteenada la duqeynahayay iyo nawaaxida in horta anteenadii ay dad qabto oo ay tahay midda aan kugula hadlayo hadeedeeda aan kula hadleen waxaan la ogaan doonaa haddii ilaahay idmo wixii waxyeelaa oo gaahay dadkii iyo maalkoodii waa wixii hadda ka dambeeya waxaan ogaanayna inta aad markaas adigu ka warqabto ilaa imise gantaal ayay diyaaraddaas riday inta aanu halkaan ka arkaynay kana maqlaynay 11 gantaal ayaa diyaaraddaas riday wixii kale hadda marka anaga naga dheeraatay ama maqalkooda heli karin sida inta maqalkooda anaga aan hayno oo aan hayno ama hillaaca diyaaradda ay kadmar ka baxayaan arkaynay waa 11 gantaal inta aad ka war hayso xaaladda guud ee degmada ceelwaaq iyo agagaarkeedu waa sidee hadda xaasiday hadda degmada ceelwaaq iyo agagaarkeedu xaaladeedu way iska degan tahay cabsida way jirtaa in ay soo rogaal celiso oo waxa weeye ay soo rogaal celin samayso wayna ka go-an tahay inay burburiyaan isgaarsiinta dadwooyinkan hadda horey u burburisay wixii aniga hadda dhanka ceesh furan iyo geriley iyo waxa weye meesha la yihahdo magaceeda iyo alaabta la yihahdo midda ka siisay geriga ka siisay waxay fariisaxaasiday geysay guurtooday geysay way ka go-an tahay marka midda aan kugula hadlahayo iyo intaas kaleeto oo intaa inay baabi'isana way ka go-an tahay waa mid mar walba la filan karo inay soo rogaal celiso hadda laakiin way degantay xaaladda asidiisu waa taagan tahay cid ka hadashay haddii ay noqoto dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland ilaa imika ma jiraan ilaa iyo hadda waxa weeye hadda ama weli aan soo gaaray hadda ama ka hadal ma jiraan laakiin waa la wada warqabaa warku waxa weeye uu gaarayaa dowladda federaalka ayuu gaarayaa dowladana kale waxa weeye ka ilmaha kama qarsoon doonto waxaana noqon doontaa tilaabo aan warshadaha reer kale dib looga xisaabtami doono haddii alla cidda geysatay oo si hore la geysatay kale waa mid laga xisaabtami doono wey